ma ogtahay afkaaga nadiif ah waa jirkaaga nadiif ah hadaba ku dadaal afkaaga si aad u yeeshid jir caafimaad qaba. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد ودكتور فوز وقلام oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha dhakhtarka Dental Clinic. ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aynu kaga hadli doono wacyigelin ku saabsan dhammaan afka qofka bini aadamka ah si uu uga taxadiro caafimaadkiisa guud. haddaba qodobka koowaad waxa weeyaan iska bedel burushka cadayga ama cadaygaaga labadii biloodba mar iska bedel. waa inaad iska bedesho waayo burushku wuxuu noqonayaa mid duug ah oo raagay kadib wuxuu samaysanayaa ilko ama firaaqiyo ku xagxaganaya kadib waxaad dareemaysaa dhiig ayuu ka keenay cidhidkaaga. marka iska bedel waqti kasta 2 months kasta mar iska bedel labadii biloodba mar. qodobka labaad waxa weeyaan waa inaad mar walba aad ku dadaashid inaad iska saartid waxyaalaha afka ka galay ama cunooyinka kugu haray ee loo yaqaano debris, food debris. waayo waxay ku sababayaan inuu afkaagii ay ku sameeyaan hadhow toole waxa loo yaqaano tartar ama calculus, taasi oo aad iska saarid adoo iska saaraya floss ama waxa loo yaqaano sticky findhicil ka isticmaashid ayaa ka saaraya. qodobka saddexaad waa inaad mar walba aad cadeeyatid. rasuulka عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri law shaqa ala ummati la amartum amri lahayna iska nadiifiyaan afkooga fi kulli salah. marka shantii jeerba mar cadayo adigoo salaad kasta mar cadaynaysid ama labada waqtiba markaad heleelisid cadayo. qodobka saddexaad another day away from the dentist baa la yiraahdaa waa in xabad tufaax cuntid wuxuu ka fogaanayaa inaad u tagtid dhakhtar. marka ku dadaal cunooyinka tufaaxa kamid yihiin, sidoo kale ku dadaal cunooyinka cagaaran ay kamid yihiin avocado-ha, cambe babayga, cambe lafka, dhammaan cuntooyinka fruitska vegetables-ka cagaaran oo dhan ku dadaal waayo caafimaadka jirka waa ilkaha oo caafimaad qaba. qodobka shanaad waa in aad cadaysato mar walba oo tii seexanaysid. taasi waxay chance ka yareynaysaa bacteria-dii waqti badan ku qaadan lahayd inay samayso ay reaction samayso waqtiga aad hurdid. marka ka fogow inaad ku seexatid cunooyinka adigoo cunay ka hor cadayso si uu afkaagu noqdo mid chance ay ku heli weydo bacteria-du. qodobka ugu dambeeyaan kusoo gabagabeynayo waxa weeyaan waa in aad mar walba oo kor u qaadid hygiene-kaaga afkaaga waxa kor u qaadmaya caafimaadkaagii guud ee jirka. inta aan ku kulmi doono muuqaalka la mid ah waxaan idinka tagayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadgelyo.